السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبان إذي سلام يا دمان خيارتا دليرada odayaasha meel walba joogtaan saacad walba idin tahay guud ahaan iyo gaar ahaan waxaan kasii wadaynaa halkan insha Allah casharadii taxanaha inoo sii socday waxaan soo baranay waxyaalihii asaasigii hore waxaan soo baranay qaababka suuqa guud ee loo qaybiyo waxay kala yihiin sida lagu ogaado in ranking geliyaan sida lagu ogaado in ka baxayaan waxaan soo baranay waxyaalaha yihiin waxa loo yaqaano reversal waxa loo yaqaano chart pattern oo ah naqshadaha uu qiimuhu sameeyo Soomaali ahaan waxaan soo baranay marka inta nooca loo qaybiyo waxaan soo baranay meelaha laga helo waxaan soo baranay wax lagu ogaado halkan waxaan ka bilaabi doonaa haddii eebaweyne inoo fududeeyo insha allahu tacaala sida mid aan u garan kartaan aad nooga soo dhex saaran kartaan suuqa saan idiin sheegay waxaan doonayaa inaan aad usoo koobo isku dayo inaan points kasoo qaato rules aan u sameeyo mar walba waxaan isku dayaa waqti ku lumiyaa inaan rule number 1 rule number 2 rule number 3 ka dhigo si rulku wuxuu kuu fududeynayaa inaad garatid ana waxay fududeynayaa inaan waqtiga koobo waaye maanta waxaan baran doonaa waayahay intii reversalka ugu muhiimsan waxaan baran doonaa head and shoulderska waxaan baran doonaa double tap iyo treble tap iyagoo bottoms ah Soomaali ahaan naqshadaha madaxa iyo garbaha ahaan u eeg kuwa u eeg labada jeer soo taabanaya saddex jeer soo taaban wax soo taabanaya u eeg mid baynu baran doonaa haddii la yiraahdo waay aan hore u socdo waxaan ka baran doonaa marka mid walba qeexideeda naqshadan waa maxay qaybaha iyo naqshadan ay u qaybsanto shuruudaha laga rabo naqshadan inay buuxiso si ay u noqoto naqshadii aan dooranay qaabkee looga faa'iideysan karaa qaabkee loo geli karaa oo stop-loss-kii iyo tag markadka xagee dhiganaysaa intee bib oo faa'iido baad ka raadinaysaa inta way baran doonaa waxaan rajaynayaa markaad casharkan barataan labada casharkan aan duubo casharadii horena aad si fiican ugu soo qabataan in aad noqon doontaan analysis fiican isla markaana leh go'aamo fiican laakiin inaad head and shoulder ka fahantid maaha waxa suuqa ku gelinaya iska ilaali kubadda hadda taqaana kubadda marka la ciyaarayo kooxdu waa 11 qof ay ka kooban tahay soo ma ahayn hadda weerarkii baad haysaa chart pattern-ka baratid weerarkii baad haysaa kuwa maanta ku siinaya waa 79 fiican baan ku siinaya oo si fiican bahasha isku dhiibi kara laakiin maxaa kaa dhiman wax fara badan gol hayo ma haysid difaac ma haysid dhexdii ma haysid marka ciyaar meesha suuqa ku gelin suuqa gelistiisa waxay rabtaa confirmations waxyaalo fara badan marta koox weyn ku dhameystiranta waaya an usii wato waxay head and shoulder waxay naqshadan u eeg qaabkan waxay tahay waxaan idhi naqshada qiimaha u samaysan qaabkan u eeg labada garbood iyo madaxu waa mid kamid ah naqshadaha uu suuqu sameeyo kow qiimuhu uu dhinac u socday uu dhinaca kale noqonayo naqshadaha u sameeyo nooca ugu badan mid kamid ah weeye tan weliba aan kuusii jilciyo qodobka labaad waxa weeyaan hal mar buu soo kala jiisanayaa hal mar buu dhinac u socday markuu qiimuhu dhinac u socday hal mar inuu isla dhinacii kale hal mar usoo noqdo isagoo aan warwareeg fara badan consolidation fara badan gelin weeyaan waaye si kale haddana aan kuusii jilciyo waxa weeyaan qiimihii imbalance iyo correction aan kuusii jilciyo waaye qiimihii saasuu ahaa kasoo qaad huwaday abtareen noocaas haddana markii muxuu sameynayaa dhow tareen noocaas baa la yidhaahdaa serious buu u socday abtareena isla markii muxuu soo noqday serious down train waa kuwa marka muxuu sameeyay marka saa loo soo eego garabkan iyo madaxa way la fahantay markaa waayo waana mid kamid ah in la arko in la fududahay in la arko baran doona qaacidadiisa markii hadda waa arkasaan abtareen saa kugu socday hal mar hadduu down train saa isku bedelo oo meeshii aad correction ka raadinaysay halka inuu soo noqdo sii noqdo kan imbalse cusub noqdo wixiisa samaysto ba maxaa la yiraahdaa head and shoulder marka imbalsiga hore meesha ku dhamaaday iyo kan correctionkiisu meesha ku dhamaaday ba maxay noqonayaan laba garab meeshii kan imbalsiga ku dhamaaday after ku socday isla markaana uu ku soo bilaabay imbalsiga cusub wuxuu noqonayaa madaxii waaye qaybta labaad niman qaybaha uu head and shoulder ku leeyahay wuxuu qaybsamaa laba qaybood gibiisuba head and shoulder inverted head and shoulder ka caadiga waa kii maxaa laga wadaa waaye head and shoulder ka caadiga ahi waa markuu aftareenka yahay markuu yahay aftareenka uu dhow tareenka soo noqdo markaas waxaan noqonaa head and shoulder weeyaan
laakiin markuu kusoo socday down train isla markaanu hal mar bilaabay inuu noqdo up train maxaa la odhanayaa inverted head and shoulder macnaheedu waxa weeyaan madaxii head and shoulderkii caadiga ahaa madaxii iyo garbihii caadiga ahaa iyo madaxii iyo garbihii foorarey inverted foorare weeyaan iyo madaxii garbihii foorarey wax weyn maaha waa labada qoriya midna wuu fooraraa midna waa normal intaa qoriya weeye waayo muxuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay gebigiisuba 3 shay waaye waxaan jeclahay way la fahanteen wax laga wado head and shoulder waaye horey baynu usii soconanaa marka qaybaha uu qaybsan head and shoulder waa laba nooc horta marka head and shoulder uu yahay maraad ka raadinaysid abtana waa labada nooc maxay kala yihiin markani waxaa la yidhahdaa mar waa sida tan marna waa sida tan waaye marka head and shoulder caadi ah head and shoulder weeyaan waa madax iyo labadiisii garbood oo markan wuxuu ka yimid up train wuxuuna aadayaa down train markan waxaa la inverted head and shoulder waa madaxii iyo garbihii foorarey wuxuu ka yimid down train wuxuuna aadayaa up train muxuu ka kooban yahay marka kow garabka midig labo madax saddex garabka bidix just inta qori ka kooban yahay I hope si fiican baa kala fahanteen haddii aadan si wacan ii fahmin qoraalka akhriso qoraalka waxaan kugu qoray kugu soo koobay haddii hadalkayga aadan si wacan u fahmin inaad note ka qoratid sharaxaadana ku darsatid aad baad umahadsan hore socono marka waaye shuruudaha laga rabo maxay tahay halkan si fiican ila faham waxaan ku saddex shay oo inaad heshaa saddex qodob baad u baahan tahay inaad ilaalisatid waaye mar walba waxaa labada dhinac horsatan laynka ka saaraysaa mar walba oo uu jabiyo train laynka waxaa labada dhinac horsatan laynka ka saaraysaa in baalsigii ciladoobay baad labada dhinac horsatan ka saaraysaa maxaan ka wadaa waaye step by step baan qaadanaa step by step waaye life noo tagi doonaa waaye saasuu ku ahaa qiimo waxaa artay qiimihii oo meeshii la rabay inuu ka noqdo saa kale mar inuu ka noqdo correction waxaa rabay inuu ka noqdo meeshuu ka noqon waayey hadduu halka ka noqon waayo uu saa u noqon waayey macnaheedu waxa weeye wuu ciladoobay soo maaha maadaama uu ciladoobay halkii uu ka noqon waayey waxaa samaynaysaa halkaa garabka sooma soo socon halkaa mar allaala markuu ka noqon waayo halkaa hoos u soo baxay maxaa samaynaysaa horsantaan lema waxaa saaraysaa in baalsiga ciladoobay madaxiisiya hoostiisa waayo kana wuu kuu shaqaynayaa moogtahay kan meeshuu ka noqon waayey soo maaha maadaama ka noqon waayey markiiba waxaa la gaaraysaa laba horsantaan line in baalsiga ciladoobay waa kan corrective-ka yeelan waaye waa laga wadaa ciladoobay correctionkiisa yeelan waaye hore u socon waaye ilaa in baalsi wuxuu ku yahay inuu correction samaysto in baals correction maadaama kaa correctionka yeelan waaye dhaqaaqa correctionka yeelan waaye labada dhinac waxaa ka saaraysaa maxaynu nidhi laba horsantaan line waaye welibana waxaad tijaabi doontaa horsantaan linekaagaasi inuu yahay support resistant oo meelo kale uu wax ka taray ama support u noqday ama resistant u noqday waaye life baan u tijaabin doonaa waaye marka labaad mar ay saaba hadday dhacdo markiiba maxaa la calaamadinaysaa in baalsigii ka horreeyey madaxiisa in baalsigii ka horreeyey kan hadduu ciladoobay kanaa ka horreeyey kana madaxiisa calaamso just intaa qoriya samee waaye qiimuhu marka uu soo noqday hadduu qiimuhu markaa soo noqdo uu soo noqonayaa markuu qiimuhu soo noqdo waa inuu ka noqdaa calaamadaadii u dhexaysay labada horsantaan line okay marka waxaad haysataa head and shoulder ma jeedaa mar allaale markuu halka ka noqdo waa u tegi doonaa waa chance waa meel aad ka geli kartid oo aad hoos u raaci kartid waaye si fiican baa halka saddexda qodob laga fahmaan jeclay waxaan kugu yidhi marka koowaad uu qiimahaasi soo dhaafo meeshii la rabay inuu ka noqdo waxaad horsantaan line labada dhinac ka saartaa in baalsigii ciladoobay ee correctionka samaysan waayey isla markaana waxaad calaamadsataa in baalsigii ka horreeyey madaxiisa adoo isaga soo dhaafinaya kadib waxaad sugtaa qiimahaasi haddii uu ka noqdo halkaa hadduu halkaa ka noqdo head and shoulder baa haysataa wuu kuu muuqdaa markiiba waad fahmaysaa aan kugu sii dartaana waxaad ku garanaysaa waayahay inuu meeshii la rabay ka noqon waayey waxaad ku garanaysaa train lane baa ku yaala train laneka hadduu jabiyo
soo jabiyo meeshii la rabay kama noqon exactly waxba khaldan mar allaale trailanka hadduu jabiyo samee labadaadii calaamadood horsanta samaysatay kadibna calaamadaadii samayso aad ku sugisay ilaa wuu soo dhaafay soo ma kadibna hadduu saa ugu noqdo waxaad haystaa head and shoulder easy way ina fahantii badan waa laga rabi doonaa insha allah waay aan kasii gudbo marka head and shoulder way la fahanteen baraadkaa baan samayn doonaa waa maxay double top ama double bottom waa naqshada qiimuhu uu sameeyo oo ah qaabka in laba jeer soo taabto meel ama horsanta ha noqoto laba jeer soo taabasho ah koreed ama laba soo taabasho hooseed double top iyo bottom baa laga kala wadaa waa naqshada qiimuhu sameeyo markuu kala wareegayo isla markaana uu ku daahayo consolidationka kii hore maxay nihin markiiba hadduu kala wareegayo muxuu sameynayaa shareholder hadduu ku daahayana waxa kusoo xiga samayn karaa waa maxay waa double bottom waaye waa mid kamid ah naqshadaha qiimuhu aadka ugu soo celceliyo markuu kala wareegayo labadaba wuu ku soo celceliyaa waad arki doontaan indhihiinu aad baa arki doonaa waayo qiimo walba kala wareegayaa ama wuu ku daahaa consolidationka double top iyo triple bottom iyo ama bottom and top dhaho ama after ama double ha noqdee wuu tagi doonaa ku kala yahay buu sameynayaa ama markii uu kala wareegayo head shoulder buu ku samayn doonaa waayo usoo gudub qaybaha double topka iyo double bottomka waaye waxaa loo qaybiyaa laba qaybood marka hore ama waa inuu top ama inuu yahay bottom oo maxay kala top iyo bottom isla mar aad qiimo after ahaa isla markaana xagga sare taabtay double top baa la yiraahdaa top waa xagga sare haddii qiimuhu double train ahaa xagga hoose laba jeer taabtay maxaa la yiraahdaa double bottom qaybaha uu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay afar impulse hadda waxaan kugu soo qaatay kelmadan afar dhaqaaq oo siman ya isla markaa siman waaye shuruudaha double top ama double bottomka ay sameeyaan waaye marka allaale hor sidii hore mar allaale haddii trailanka qiimuhu soo dhaafo maxaa samaysanaysaa qaabku qaacidada hore raacaysaa kow taas ka mid hadduuba trailanka afterlanka kuu socday oo kuu samaysnaa trailine qiimuhu ka noqon waayo meeshii la rabay uu soo dhaafoba waa inaad markiiba la gaadhaa horsanta linekaaga sawiraysaa si aad u fahantid meesha wax ka jiraan waxaa dhici doona waxaad fahmaysa waxaa rabaa inaad fahantid maxaa kuu soo socda kadib waxa kuu soo socda markaad ogaatid waxay fududahay inaad ka faa'iidaysatid isla markaana qiimuhu hadhowto meeshuu aadayo aad ka fahantid waxaan naqshadan uu sawirkan dhacay mar allaa taas markay dhacdo maxaa nidhi waaye impulsiga waaye correctionka laga rabay correctionkan impulsiga isu bedelay waa kana impulsiga isu bedelay moogtahay correctionkan impulsiga isu bedelay maxaa laga rabaa inuu sameeyo waxaa laga rabaa isna horta correctionkan impulsiga isu bedelaa inuu la sinaadaa meesha horsata baashaadii hore la sinaadaa isla markaana impulsigan cusub kan labaad cusubina waa inuu tagaa impulsiga meesha hore muxuu noqonayaa waa kii labaad buu noqonaya moogtahay waxaa kii saddexaad buu noqonayaa waaye meesha uu ka saddexaad ku dhamaadayna waa inuu kasoo bilaabmaa mid afraad maxaa kuu samaysmay kugu soo celinaya marka uu qiimuhu soo dhaafo trailankaaga laba horsata laba dhigaysaa waa in correctionkii la rabay correctionkii soo jebiyey trailanka waa inuu la sinaadaa meeshuu kasoo biloomay impulsiga ka horreeyey ee horsanta ka dhigatay waa qodob koowaad isla halkan waa in impulsi cusubi ka bilaabmaa impulsiga cusub meesha ku dhamaaday waa inuu kasoo bilaabmaa mid saddexaad kii hoowaade ciloodobay kii correctionka ahaa inuu yahay mid saddexaad isla markaa impulsiga saddexaad meesha kusoo dhamaado oo ah meesha kii hore kasoo labaad ka yimid waa inuu ku dhamaadaa isna dhog afraad ka timaada halkaan maxaad haystaa marka m baad haysataa tusaale fudud baan ku siinayaa qiimahan wuxuu socday kor buu saa ugu socday waayo waxaa aragtay inuu correctionkii soo dhaafay horsanta line baa halka dhigaysaa maxaa laga rabaa halkan kow waxaa laga rabaa horta inuu soo gaadho halkan inuu soo gaadho necklineka inuu soo gaadho meeshii horsanta ku yaallay oo kii hore ka bilaabmay labo inuu mid cusub halka ka bilaabmo isla markaa uu tago meeshii kii hore ka yimi ama kii hore ka bilaabmeen kii saddexaad baa haysaa moogtahay isla markaa meesha saddexaad ku dhamaaday waa mid afraad kasoo bilaabmaa isla markaana uu yimaadaa meeshii kii hore ku dhamaaday maxaad haysaa marka maxaa kuusoo baxay waxa la yihahdo double top double bottomku waa sidaa double bottomkuna waa isla intaa wax ka weyn maaha double bottomkuna muxuu sameynayaa isla inta sameynaya suu sameynayaa waa in qiimuhu maxay sameeyey isna qiimihii muxuu sameeyey wuxuu ahaa down train suu down train qiimuhu ahaa markuu halkaa tegey qiimihii lama rabin inuu halkan ka noqdo
ula sinaaday kii hore inuu la sinaado mar allaala markaa aragtay inuu trailer kaga jabiyay waxaa samaysatay laba horizontal line saa ugu sin weliba ka dambeeya taatira waaye qiimahaas marka waa inuu soo noqdaa uu yimaadaa meesha kii hore ka yimid haddana waa inuu ku noqdaa kii hore afar lugood ku samaysay marka maxaa ku abuurmay w ama m ama w marka waa inuu saa ku samayrataa hadduu abtirin yahayna waa m w na waa hadduu yahay down train waaye horaan soconana treble topku waa isla intii isagii double topkii oo 3 jeer ah macnaha naqshada qiimaha uu sameeyo weeyaan 3 jeer uu kor taabasho ama hoos taabasho kuwan 2 jeer baa soo kuwan muxuu ahaa 2 jeer ada down trainkii mar kala ku darsamaya bis isna wax kala ma meel ka dooni marka ku darsamo 2 jeer dhacdo maxay noqotay marka 3 jeer hadduu abtirin yahay eeg inuu soo noqdo eeg waa m lagu daray mar soo jeedid wuxuu noqonayaa marka treble top waaye aan hore socdo marka waaye maxaa loo qaybiyaa treble topka isla sidoo loo qaybiyaa inuu treble top noqdo uu yahay abtirin hoos noqdo inuu double inuu noqdo abtirin hoos noqdo inuu treble bottom noqdo yahay down train hoos socday qaybahan waxay ka kooban tahay 6 imbalance 6 dhaqaaq oo siman way soo tusaale life na u tagi doonaa way taw dambaysa qaabkee looga faa'iideysan karaa kow naqshadahan qiimahan waxay bixiyaan wax loo yaqaano waxa looga faa'iideysto waxayna siiyaan entry exit meesha ka geli lahayd iyo meesha ka bixi lahayd waa meesha ka geli lahayd iyo table meesha ka qaadan lahayd waa table say ku siinayaan waxay ku siinayaan mar walba waxa looga faa'iidaa wax loo yaqaano equal measure movement intii in leeg bay qiimahan socdaan intii uu ku jiray kuslashaka ama show hadaf inta in leeg buu socdaa tusaale cad oo tagnaa laba qaabna waa loo geli karaa in xagga hore loo soo qabsado hadduu double bottom yahay hadduu treble yahay hadduu yahay show hadarba meesha ka soo qabsatay korkeedana maxay dhigatid stoplasska 15 bib out ka dambaysid waa nooca aggressive la yiraahdaa waa dadkan khatarta ku tala galay riski tolerance marka la qaybinayo waan dhigan doonaa cashar ma ka soo diyaarin doonaa haddii ilaahay yiraahdo nooca riskigiisa u daran lahayd kalena waxa weeyaan sidii aynu hore soo sheegnay inaad hubsatid wixii reversal yahay isla markaas ay hubsanaysaa waa inaad wixii waa inuu jabiyo horsanta laakiin inuu jabiyo bullback soo sameeyo bullback kadib ka raacid labada qaab mid loo raaca faa'iidaduna waa nooca way aan tusaalayaal leef u tagna marka excited egg meel walba waxaan ka dhacaan shan horarku adaa waxaan ka rabaa maanta inaad wax badan samaysid egg tare sawir far badan samaysatid adigu aad wax badan sawirasid ma jeedaa hadda egg tare lexas kugu yaalay mar allaala markaa aragtay inuu cidoodobay bahashan ay soo dhaaftay meeshii la rabay bullback saa u soo dhaafayba maxaan ku samayso madaxana ka dhig kaan ka dhigay lugta hoosna ka dhig hay labo in seerteen waxba qordo kula xuma inaad calaamasatid in seerteen ku dhuftay calaamad baa la soo baxay maxaan calaamsanayaa madaxiisii haddii uu ka soo noqdo jas waan haystaa soo jeedid waaye see loo gelayaa faa'iidada waxaan kuu yidhi waxaa la yidhahdaa equal measure movement oo say u tahay waxa u tahay waxaad cabiraysaa halkaa labada horizontal line ee saxda aad u dhigatay intay isu jiraan isla inta ay isu jiraan in leeg buu hoos soconaya hadda waa imisa 103 biib ilaa 103 biib eeg ilaa 103 baa ka soo soconaya 130 ma socday 103 biib meelahan weeyaan وسمعت بقول سدح سبي وملح وإلى جدارك سكتي وإلى جدارك كسر نقص ما جدي أنت إلا جون الصعدة أنت إلا وصعانية استولس كحاجة لجاني يا مركان كانوا خارج جاني استولس حن لو قابل دوجي كرتها إن البول باجي سوتي وهاي كسوقشين إن البول باجي سوتي وهاي كسوقشين وغلط إيوه إن ماشي على علامة ستك كجشيدو كرة كسوقشين هذا ماشي على ستك كجشيد حاجات جانا استولس كا وحد جانا صح toban bishan bi meelaha saxan ka dambeysaysa siisan wikiskaas ku soo gaadhin waa aggressive nooc leeyahay meesha saxda hada gelisina halkan horsantalka u dambeeyay bad gadaashiisa dhigaysa way tusaale kan aan siiyo marka soo dhawato eeg halkan double bottom bakra ku jira kan waa trouble tabtana ma aragtay inuu jabiyay mar alaab ku jabiyay horsantal leen ma labada wax ka dhigaya horsantal leen wax ka dhigaya labada dhinac madaxiisi iyo hoostiisa ka dhigaya exactly wuu jabiyay
ما هذا ترابل تويا وينو ها يمادا halkan isla markaan kaana taabtaa si kana taabtaa waa u malanaya inaad waxaan malanaya soo dhigateen basic waxa la barayska facial area exactly horizontal line inuu taabto khasam ma laakiin wanu aaga yimaadaa aaga wanu yimaadaa waayo weekis baa ku jiri kara exactly wixii meesha waxa ku jiri kara weekis baa ku jiri kara exactly weekis ku jiri kara wala socotaa ma jecla waa kan maarta weekis baa ku jira madaxoodu isu dhow yihiin weekis baa ku jiri kara tabatabki waa kan marka waxaan ka rabaa baraad kala badan inaad samaysaan bahashan qiimahan aad buu uga buuxaa baash aad buu uga buuxaa always aad buu uga buuxaa mar walba aad buu uga buuxaa take profitka waxaan kugu soo celiyo mar walba qiimahani intaa in leeg buu dhaqaaqaa wuxuu dhaqaaqaa hadda kana intee waa intee bib eeg 60 iyo 4 65 bib isla halkii ka sawir uu leeg ahaa 64 65 eeg ka badan buu dhaqaaqay ugu yaraan muxuu dhaqaaqayaa inta isu jiraan buu dhaqaaqayaa ugu yaraan inta isu jiraan buu dhaqaaqayaa take profitkaaga u dambeeya waxaad ka dhiganaysaa meesha waxaa kaloo haddaad cabirkaa isku fiicneen maxaad kaloo samayn kartaa trail line soo qaado madaxa saa ugu soo sawir labada madax saa u leekeysiiyey ma leekeysiisay saa u leekeysiiyey ma leekeysiisay markuu saa kugu leekaado in active ka dhigo isaga soo kobiyeyso necklinekii dib u hoos dhig kadibna markaad dhigtid hoostiisa maxaad dhigaysaa horizontal line soo dhig trailinka calaamadaas soo qaadatay ilaa halkaa uu kuu soo soconaya halkaa take profitadaada soo qaybso mana fiicna inaad samaysatid inaad inta hal take profit oo ilaa halkaa samaysatid 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 intaas samayso si mar walba hee ay u yaraato khatartaada oo TB1 hadduu kuu qaado aad u soo rutid take profitkaaga u keentid meesha intarigaaga isla markaana aad ka faa'iidid in aan xoolahaaga khasaarin hadduu kugu soo noqdo qiimahani wax walba u dhici karaan cid suuqan damaanad ku qaadaysa ma jirto waa predictable 90% 80 aad helaysid 5% mar iyo dhif bay dhacda markay dhacdo si aan xoolo u khasaarin TB1 ka ku qaracsa u soo rartid waynu baran doonaa sida loo sameeyo risk managementiga waxaan jeclahay inaad fahantiin kaliya waxaad u baahan tihiin practical aad fara badan casharadii aan soo qaadanay arday baa jirta ila soo xiriiray practical sameeyey sawirro ii soo diray aanu isla discuss gareynay waa saxan ku lahaa aniga waxba igama gelin tiimkaad kamid tahay haddaad IML ku jirtid tiim kala ahow sidoo kale waxba igama gelin inaad IML ku jirtid iyo inaadan ku jirin waxay ka galeen haddaad luqadda af Soomaaliga fahmaysid casharkayga aad dhageysatid isku day inaad fahantid haddii aadan u baahan tahay inaan kula soxo sawir WhatsApp-kayga xagga hoose ku soo qoraya insha Allah isku day inaad wax sawirtid ii soo dir wax dhibaato ma jirto waan ku leeyahay karaa waayo waxaan cashar kugu soo duubay inaad wax fahantid aad baa idin salaamaya gidigin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh